الله الله يا مهد اسكاله الله إن وافتشي إن قدبدنا أن كجا هذا الله وأن دورنا وأن كل حشرنا موزن آدي خير يا فضل بدن وما نتحوي يجنا الضوء عرفت تاجنا وحل الدنيا يجنا مركاين إلهي بريان وإلهي دعوي ديسته وإلهي توغان وبعيد إلهي التواضعان رسول صلى الله عليه وسلم حج الوداع بقول نيف وجيل بالجورع تضبعات المركو جعنتي سكو جورع رسول صلى الله عليه وسلم تضبعات النيف وجيله وصد النيف وجيله أي صاحر سنتهاي علي بن أبي طالب وديلي صلاة مركات كتم هذا النيف كود حدا ولا قادوني وحد حدا وحال الجورع يا صلاة مركات لقي ماده dadka ku tahriibaya badaha boqolkiiba 90 iyo 9 dadka diinta bartay maaha ciqaabka ugu weyn ee kalena oo haystaa madaxda Soomaaliyeed meel kasta iyo mandaqad kasta iyo goob kasta ay joogaan Allah ya mahad iskale Allah ina waafajiyay in qudbadeena aan kaga hadalno oo aan dhowrno oo aan ku dhex jirno موزن آدي خير يا فضل بدن الله سبحانه وتعالى وكدارتي والفجر وليال عشر ابن عباس رضي الله عنهما وحاول إن ليالي العشر التي أقسم الله بها مالمها طبنك الله وحوي وكدارتي هي ليالي الأولى من ذي الحجة هي ليالي العشر الأولى من ذي الحجة وما المهن أين كوكو تشرنو وأيام المعلومات التي أخبر الله عنها بقوله إلهي قول كيسا عزيز كايو كتل مامي ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ابن عباس حوت المامي آيات سوحيت الماميسا أيام العشر وطبعا كان ذو الحجة وي أمرك وحوي عين كوجودة شري الله سبحانه وتعالى وحقوق عسيرة فضل آدي ويناد عظيم وبدن مع المهني فضل جود يدعى عضي عبادات كلا لا يمنيه سيدا سيا حبيبك رسولك صلى الله عليه وسلم فكل عمل صالح فيها حب إلى الله منه في غيرها وأعماش الصالحات سيد حديث كان تلمام دون تنوت المامي ورسولك أويري ما من أيام عمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر مجرو أي نبي محمد أويري وتلمامي جامع الترمذي حديث ابن عباس رضي الله عنه صححه الألباني والحديث أصله في البخاري أصل كيسنا حديث كنا البخاري وكسنا حديث كاسواكي ما من أيام متشران العمل الصالح عملك الصالحة فيهن أحب إلى الله لو رجع البدن إلهي حقيسة من هذه الأيام العشرة طبعا كان مع الموديل اللي وتشرو نبي محمد صاص أيوت المامي صحابة دي بكوريري كذا ابن وحير أهدين ولا الجهاد في سبيل الله صحابة وحي هايين أجيال أخيار قيمة بدن وحي أكسون هايين جهاد كينو يهي درجة أقصى الرئيسة أما كروس كاما سنام كينو أقصى الرئيسة إسلام كينو يهي مركز سيادة رسولك الله حدياتي لي ما عمل صالح الله سميه oo ka wanaagsan oo ka looga jacayl badan yahay maalintan 10 dhulxijja 10kan cisho ee hore bisha dhulxijja hadii aad nabi maxamed saad nagu tiri ka waran jihaadkiina ya wala jihad fi sabilillah hum yunahawiya jihaadki baaba fadligiisu badnaaye markaas rasuulku wuxuu yiri oo jihaadkiina ma ka fadli badan yihiin acmaasha maalmaha la sameeyo ay saxaabada rasuulku ku yiraahdeen markaas rasuulku wuxuu yiri فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله جهاد وحوية اسمها دي لا لدغو
way ka fadli badan yihiin markaasaa rasuulku istisnaabu ka soo reebay ilaa rajulun nin baxay oo baxay binafsihi naftiisuu bixiyey wa maalihi maalkiisiibuu bixiyey falam yarjica min dalika bishay naftiisii iyo maalkiisiiba halkaasay ku halligmato ma soo noqon ninkaa uunbaa waxa weeye ka fadli badan ka xasanaad badan ajarka iyo xasanaadka maalmahaasi leeyihiin ruuxii jihaadka u baxay ee naftiisii waxa weeye maalkiisu ay halkaa ay ku tageen ruuxa uun ayaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ka soo reebay marka maalmahani maalmaha aad u khayr badan weeye aad iyo aad iyo aad u fadli badan riwaayad kale waxay tilmaamaysaa riwaayadda oo sunan udaaramiy ayuu waxa weeye min xadiisi ibnu cabaas radia allahu canhu waxasanahu albaabiniyi fi riwaayati alqaliil albani waxa weeye wuxuu waxa weeye ku xasaneeyey riwaayadiisa qaliilka riwaayadaasi maxay tahay maa min camalin camal ma jiro aska cinda allah ilaahay xaggiisa looga taskiye badan yahay looga jacayl iyo wanaag badan yahay walaa acdamu ajran ilaahay agtiisana ka ajar badan min khayrin xagga khayrka yacmaluhu oo la sameeyo fii cashri udxaa tobanka dambe udxada camal la sameeyo oo ilaahay looga jacayl badan yahay oo ilaahay looga taskiye badan yahay oo ilaahay looga sarrayniyo ammaan badan yahay oo ilaahay looga xubbi badan yahay tobankan cisho in la sameeyo ma jirto maalin kale oo la sameeyo waa toban cisho aad iyo aad u qiimo badan weeye sidaa daraaddeed ikhwaani yowma taasic maalinta waxa weeye sagaalaad wa yowmul carafa waa maalinta carafo weeye maalinta sagaalaad waa maalinta carafo weeye maxaa ka horeeya maalinta yowmu talwiya oo ah maalinta biyodhaansiga xujaydu maalinta yowmu talwiya baa maalintaasaa ka horaysa waxaa ku xiga yowmul carafa maalmahaan yara dul istaagayna maalinta carafa ayaa waxa weeye ku xigta waanu degi doonnay axaadiisteeda maalinta tobnaad waa maalintee weeye waa yowmu naxri waa maalinta hilbaqalashada weeye yowmu alxaji alakbar waa maalinta xajkii weynaa waxa weeye u dhacayo waa yowmu lciid maalinta ciidda waa maalinta tobnaad weeye maalinta koob iyo tobnaad yowmu waxa weeye qarni baa la dhahaayo maalintii waxa weeye nagaashaha weeye ya maalintii nagaashaha weeye maalinta labiyo tobnaadna yowmu nafri luulaa maalinka waxa weeye lasii kala qadimayo weeyo yowmu nafri thaani maalinta saddexiyo tobnaadna waa maalinta laga dareeraya xajka sidaas ayaa maalmuhu ay u baahan tahay ruuxa muslimka ay u baahan yahay inuu waxa weeye uu kala barto uu kala fahmo waa sidaas weeye rasuulku sal allahu alayh wasalam markaa yowmu taasic maalinta sagaalaad yowmul carafa waa maalintii carafa inta badan waxaad arkaysaa ama xujaajta waxaa ku dhaca haddii markaa waxa weeye aysan haysan daliil markaa wax u sheega oo sida saxaa wax u tilmaama ama in badan qaarkood sida fadhi kudarrada ay u joogaan waddanka ay u joogaan xaramkana ay ku dhex qabsadaan baa qaarkood waxay sameeyaan carafaba ma yimaadaane kadibna waxa weeye xaajooyin kale iyo hawlo kale galaano hadhowta ruuxiibamaba soo xajinba ruuxaan carafo istaagin xajba uma qabsoominba waa sidaas weeye waa yowmu taasic maalinta sagaalaad wa yowmu lcarafa wa yowmu lcadiim waa maalin weyn rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu tilmaamaya xadiiskii saxiixa saxiixulmuslim ku soo arooray caaisha radia allahu canha waxauu marka xadiiskaas tilmaamaya maa min yowmin maalin ma jirto akara ka badan min an yuctiqa allahu alla inuu ka xoreeyo caza wajalla fiihi cabdan min annaar addoommadiisa naarta inuu ka xoreeyo waa maalinta waxa weeye markaa naarta la xoraynayo addoommada naarta laga xoraynayo waa maalinta waxa weeye iyagana addoommada carafo taaganna waxaa la doonayaa iyaguna markaa inay ilaahay baryaan oo ilaahay duco weydiistaan oo ilaahay tuugaan oo baahidooda ilaahay u tawaaducaan oo ilaahay masalada weydiistaan innagana waa maalinta laynaga rabo inaynu soonno oo la doonaya inaynu soonno dulxija tobanka dambe ee dulxija waa ay kuu bannaan tahay inaad soonto rasuulkuna waa uu la yimid tobanka waxa weeye inuu soomo sidaa daraaddeed maalintaa carafa soonkeeduna waa sanad soo socda
iyo sanad waxa weeye kaa tegay labadaas sanad dembi dhaafkeedii weeye markaas rasuulku wuxuu yidhi khayru ducaa'i markaa rasuulku wuxuu yidhi maa min yowmin maalin ma jirto akthara ay ka badan tahay an yuctiqa in la xoreeyo ay caza wajalla alla waxa weeye inuu yuctiqa allahu alla inuu xoreeyo ay caza wajalla fii cabdin min annaari addoommadiisa naarta ka xoreeyo min yowmi alcarafa maalintaa ka badan tahay ma jirto wainahu layadnuu ثم يباهي ملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ملائكة يسكوي الإله جل وعلا مركز سوير عرنايا وبر الضومة يدي فيريا إيجا الضومة يدي حال كودوسية الضومة يدي محي ويدي سنية قرعة وقلوش عرف على تاجيه باهدا اللي ويدي سنية روح قصة روح كلا إيجي ماي إلهي بقى عمال لو تاجيه markaas ilaahay ku faanaya amaanaya markaas oonaya fiiriya addoomadaydi fiiriya maxay iga magangelaya maxay weydiisanaya ikhwaani maalinta iyada ilaahayna inuu cibaado ugu tawaaducno oo aynu cibaadada la nimaano waa arrin mashruuc oo sharciya sidaa daraadeed rasuulku sallallahu alayhi wasallam xadiiska jaamic tirmidhi ku sugnaaday xadiis abdullah ibn umar ibn aas radiyallahu anhu وصححه الألباني في صحيح البخاري وصلنا له وقلت المامية خير الدعاء وقال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم العرف دعاءته خير كبنوات على ما أنت عرفه وخير ما قلت وحنين وأنا والنبيين من قبلي أنا جاي النبي دي يقول الرينا ذكر أيرادين وذكر يوقي مبنايو ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما أنت عرفه كلمة لها صالورانيا وكلمة عظيمة وحدانية إلهي بيت المامية إلهي بوحوي تلتانكي صحصيا إلهي باكلية إله كلو الدنيا ده كله لمتشره وحوي وحده إسقون كليه لا شريك له على الله شريك له متشره له الملك ملكية إلهي بايسكله وله الحمد ما هدورن إلهي بايسكله وهو على كل شيء قدير شيء كست الله أودوي سيداد رادر إخواني نعم راس إيه كلمة لهاس عجيب كايا لدونا يعني ليماد سيدا وحين تلمامينا حديث صحيح المسلم كاها ومرك حديث أبي قتادة وحوية وصوري صيام يوم العرف ما نتعرفه أول الصوم قال فيه النبي محوكير وحوكير صيام يوم العرف ما نتعرف الصوم تيدا أحتصب على الله وحروح وحوية وأجر حساب سنة أن يكفر سنة إنه تمدافع سنة واكي التي قبله والتي بعده سنة هوري هي سنة ضمبي إن لو ضمبي دافو ما أنت عرفه وأرنت أسوية إلى شو وأسيد أسوية إخواني أن يوم العاشر هذا حي ما أنت تمناد ما أنت سجالات وحين هو يوم العرفة ولا له الدعاء اللي تاجين عرفة تاجين إنه هو صومنا لبضع سنين حساب سنينا سنة هرايا سنة دم دافكود ما أنت تمناد ما أنت تمناد سيده الشيء سنن أبي داود من حديث عبد الله بن قرد رضي الله عنه صححه ومركز صحيحية الألباني في حوي إراء القليل وحوت المامية إن أعظم أيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ما المها إلهي وحوي قوي وما المها النحر قورعوي الله سبحانه وتعالى حينات المامي آيات كيس يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاء ورصح صدقة ضيست ولنتان قيامه يدين من وروح صدقة ضيست وروح لبحة سيدا درادي ما ننتا يوم النحرقة صدقة إيمانيس وحلوغو جعيل بدنيا أفضل الحج والثج رسولك صلى الله عليه وسلم يقول حجك أغفر لك بدن أفضل الحج والثج وحجك أغو تلبية بدن قفك تلبية بدن ولا يمادو يا تلبية ولا يمادو معوك الله والله يمنيا كدم وحوية والله يمنيا دبحي وقورعي حجك ugu ajarka badan qofka waa xajkiisa ugu dhigdaadinta badan iyo waxa weeye ugu talbiyada badan
sidaa daraaddeed waxaa laynaga doonayaa talbiyada laynaga rabaa innaga maxay tahay ya waxaa laynaga rabaa laa ilaaha ila allah allahu akbar walxamdu lilah laa ilaaha ila allah walxamdu lilah wallahu akbar waxaa jira dad badan oo tobanka inay soomaan aan awoodin aan soomi karin shaqooyin adag ku jira waayeela xaalad maalinta laga yaabo carafo inay soomi karaan maxaa u kabaysa maxaa aad iyo aad u fadli badan oo nusuustu ay ku soo aroortay waxa weeye waa inaad adkaarta la timaado dikriga carabkaaga inaad ku hayso dikriga ilaahay inaad carabkaaga ku hayso laa ilaaha ila allah allahu akbar walxamdu lilah laa ilaaha ila allah wallahu akbar walxamdu lilah ya xujaydu tayba dhahayeenna waynagina waxa weeye inu soo marnay waa saas weeye halkaas ayaad waxa weeye ku haynaysa maxaa markaa ruuxa u furan muslimkaa innaga qolada xujaajtu iyagu hadyigii bay gowracayaan rasuulku sala allahu calayh wasalam xajulwidaac 100 neef oo geela buu gowracay 70 markuu gacantiisa ku gowracay rasuulku sala allahu calayh wasalam 70 neef oo geela oo 30 neef oo geela ay soo harsan tahay buu cali ibn abi daalib u dhiibay markaasuu cali oo israaci gowrac 30 neef buu calina gowrac ka waran 70 neef gowrac marka walaalayaal waa loo safrin karaa xajka in xoolo badan oo lagu qalo aad sadaqa u bixiso aad u gudbiso waa arrin bannaan laakiin innaga maxaa laynaga doonayaa dadka xujayda xajinaya iyaga hadyi baa laga doonaya hadyi baa laga doonaya ama waajib ha ahaado ama sunna ama hadyiga ha ahaado waa laga doonaya innaga laakiin maxaa laynaga doonaya innaga udxa laynaga doonaya udxada ayaa laynaga rabaa oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxa uu inoo tilmaamayaa حديثك أها صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وهذه أدركتان ذي الحجة بشيء ذي الحجة هذا أدركتان وأراد أحدكم ومتكين دونه أن يضحى إنه أضحيسته أضحضه وسنة مؤكدة لكن سكات الفطر وواجب سكده اللي جده marka bisha soonto ay dhamaato oo bariiska la bixinayo iyadu waa waajib laakiin udxadu waa sunno muakkada waxay sunno muakkada ku tahay qofkii awoodi kara oo kari kara neefka inuu gowraco neefka ugu wanaagsan baan la gowracay neefka laga gowracayo halkan ee udxada lagu gowracayo ilaalintiisa kaasoo kala waxa lagu doonayaa hadigana waxa weeye in lagu gowraco hadigana in lagu gowraco ضحى رسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين لبون أيو جورع يا أملحين وهو مركها وحوي مع رئيسا أغرنين أو جيسله نف إذا يو جيسله ده كل ودور سنة شروي دريم كرتا ذبح بيده جعنتي سوق جورع جهاد وشيري جعنت من بوكو قبصري قرب كأيو كساري kadibna waxa weeye waa uu dilay ninku waxa la doonayaa udxada inuu isagu gowraco xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo ehelkiisa udxada inuu gowraco mustaqbal aad iyo aad u murugaysan ayaa waxa weeye ay istusayaan runtii ruuxa hadduu ilaahay ku xidhan yahay waxba kama xumaadaan daraasaadaan beri sameeyey dadka ku tahriibaya badaha 99% dadka diinta bartay maaha waalidiinta waxa la doonayaa awlaadooda inay diinta baraan qofka ilmaha diinta bartay wuu garanayaa haddii uu mahalakada uu galo inuu qaatilu nafsi yahay inuu naftiisa dilay aakhirana lagu ciqaabayo lagu cadaabayo ciqaabka ugu weyn ee kalena oo haystaa madaxda Soomaaliyeed meel kasta iyo mandaqad kasta iyo goob kasta ay joogaan ilaahay waxaan ka baryaynaa dalka inuu badbaadiyo
ilaahay waxaan ka baryaynaa madaxda Soomaaliyeed inuu toosiyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa away rajo wanaagsan in ilaahay waxa weeye shacabka iyo mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed inuu soo celiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa dhalinyarada maanta badaha ku la'aanays in ilaahay nasri khayr qabo oo wanaagsan oo ay kaga istaagaan ilaahay uu furo dilkooda Allah ha jeclaysiiyo diintoodana Allah ha jeclaysiiyo dilkoodana Allah ha u barakeeyo diintoodana Allah ha u barakeeyo madaxdooda Allah ha u barakeeyo waxay haystaan ku isku filaysay Allah ka dhigo ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار